Linda Derby waxay ahayd gabar yar oo u dhalatay waddanka Mareykanka. Waxay dhalatay sanadka markuu ahaa 1943. Linda waxay ku nooleed magaalo lagu magacaabo Ashland oo ka tirsan waddanka Mareykanka. Gabadhan run ahaantii waxay ahayd gabar ka quusatay waxbarashada iyada oo yarba. Reerkeeduna waa ay ku kari waayeen gaar ahaan hooyadeed iyo aabaheed. Arrinta yaabka badan waxay ahayd markii sanadka markuu ahaa 1955. Lindana markaasi ay jirto da ahaan 13 sano. ay sheegtay inay jeceshahay wiil sidaas darteedna ay doonayso in loo guuriyo. Hooyadeed iyo aabaheed ayaa ka qoostay inay ka joojiyaan guurkan yaraanta ay ku dalbanayso. Xilligaasina ma jirin sharcigan Mareykanka ah ee qofkii gabar yar haweysta ama ka yar 18 sano xabsiga la dhigay. Reerkii markii ay ka daaleen gabadhooda waxna ay baran weysay, waxay ugu dambeyn go'aan ku gaareen in gabadhooda ay u guuriyaan ninka ay rabtay ay jeclaatay. Ninkii ayaa lagu daray. Nasiib wanaag, Linda markii ay jirtay 18 sano waxa ay haysatay ama ay dhashay 4 caruur ah. Reerkeedii ayaa iska dhaqanaysay, laakiinse waxyaabaha aad loola yaabay oo ninkeedii xataa kula yaabanaa waxa uu ahaa in markii la gaaro xilliyada galabtii ilaa habeenkii Linda inta caruurta ay qol ku xareyso, qubaysato, labisato, isla markaana ay aadi jirtay magaalada. Ninkeedii marar badan ayuu su'aalay oo u weydiiyay halka ay u socoto, maadaama guriga iyo caruurta ay u baahan yihiin. Laakiin waxay u sheegi jirtay inay soo salaamayso ama ay aadayso gabar ay saaxiibo yihiin. Sheekadu arrintaasi waa ay ka weyneed. Linda waxa ay baratay wiil lagu magacaabo Charles. Charles isagu da'diisu markaasi waa 17, Lindana waa 18. Meeshaasi xiriir ayaa ku dhex maray oo waa ay isjeclaadeen labadoodu. Ugu dambeyn labadoodu waxa isla garteen inay isguursadaan. Markaas bay weydiisay su'aal ahayd, Charles, maxaan ka sameeyaa reerkan aniga aan leeyahay? Wuxuu ugu jawaabay, ninka iska soo fur aniga ayaa ku guursanayay. Linda waxay u raacisay su'aasha 4 anug aan haystana. Waxa uu yiri, caruurtana soo wado, aniga ayaa aabahood oo kale mas'uuliyadooda qaadaya, meel wanaagsan waan la degeynaa. Arrintaasi kama aysan labalabeen Linda, sida ay u socotay durbaba waxa ay bilowday inay ninka ka dalbato furiin. Markii hore waxa ay ka baqaysay reerkeeda, sababtoo ah meesha ay degan tahay, sumcad xumo ayaa ugu faafileed haddii ay tiraado reerkeeda, nin kale ayaan rabaa ninkan haliga furo. Ugu dambeyn jiijid kadib Linda waa la furay oo caruurteedii ayay soo wadatay, waxaana ay isguursadeen Charles. Charles Derby waxa uu soo jeediyay aragti ah maadaama deegaankan Ashland laga yaqaano iyaga in hadhow ay dadku ku xaman karaan ficilka ay ku dhaqaaqeen, sidaas darteedna ay u guuraan deegaan kale. Waxa ay degeen deegaan ka tirsan gobolka Indiana ee dalka Mareykanka. Halkaas ay noloshoodii ka sii wateen. Culayska ugu weyn ee labadan lamaane soo wajahay waxa uu ahaa iyadu waxba ma aysan baran, sidoo kalena isaguna waa la mid oo waxba ma aanu baran. Sidaas darteed Charles waxa sugaysa mas'uuliyadda 4 caruur ee gabadha ay dhashay iyo sidoo kale guud ahaanba biilka qoyska. Isagu waxa uu bilaabay inuu dhaxda xirto oo dadaal badan uu ku bixiyo. Nasiib wanaag waxa ay u dhashay gabar, taas oo keentay in Charles uu dadaalka meeshiisii ka sii wado. Hase ahaatee waxa ay bilowday in ay iyaduna u dhaqanto si ka duwan sidii hore, isla markaana aysan wax mas'uuliyad ah saarin waalideen. Linda waxa ay sameyn jirtay maalin walba lacagta biilka loogu keeno, waxa ay la aadi jirtay suuqa iyada oo ku soo iibsanaysa shopping iyo waxa ay u baahan tahay. Sidoo kale reerka biilka ku baxay sida korontada, kirada guriga, biyaha, deen ahaan ayay ugu soo qori jirtay Charles. Laakiin maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa yimid dadkii deenta lahaa. Charles ayaa la weydiiyay lacagta inuu bixiyo. Run ahaantii Charles lama filanayo ku noqotay arrintan, waxaana uu bilaabay in uu aad u xanaaqo isagoo Linda weydiinaya sida ay waxan ku dhaceen. Linda iyadu durbaba ma aysan weyn marmarsiyo oo waxay u sheegtay saaxiibkeed in iyadu laga soo helay cudurka kansarka, sidaas darteedna isagu ay ka qarisay maadaama ay fikirka u diidaneed. Lacagtana ay maalin walba dhakhtarka ku aadi jirtay. Dhakhtar ayayna magaciisa u sheegtay. Charles waa nin iska maskiin wax jecel ah, isla markiiba waa uu aaminay oo dood kale kama aanu keenin, waxaana uu bilaabay in shaqadii uu sii xoojiyo si markaas uu u kordhiyo masruufka guriga. Maalin maalmaha kamid ah ayuu waxa uu weydiiyay in ay isu raacaan dhakhtarka si isagana uu bal ugu yaraan ula socdo xaaladeeda caafimaad, laakiin waa ay ka marmeertay. Charles aad ayuu uga shakiyay arrintan, waxaana uu bilaabay inuu dabagal ku sameeyo. dhakhtarkii loo sheegay ayuu u tagay, waxaana dhakhtarkii uu ku yiri gabadha aad sheegayso ma naqaan, kansarna kama aanu baarin. Waagii ayaa ku bariyay Charles. Durba gurigii ayuu ku soo laabtay, gabadhii ayuuna ku canaantay beenta u sheegtay. Oo markii dambe runta ayay u sheegtay iyada oo ku tiri, "Habibi, waan isku soo qurxinaya lacagtaas, sidaas darteed ayaan kaaga qariyay."
Charles waxa uu go'aansaday isaguna in uu baxo oo wargeys markaasi ku yaalay deegaanka ay deganayeen uu ku soo qoro sheekadan una sheego dadkii deenta isaga ku lahaa in aan wax deena lagu lahayn isla markaana xaaskiisa lagu leeyahay. Linda wargeyskii ayay aragtay oo akhrisay iyadoo oo aad u qaylinaysa ayay Charles waxa ay ku tiri maxaad ii fadeexaysay maxay taa waxa aad samaysay. Charlesna waxa uu sheegay in uu sameeyay wixii isaga la gudboonaa. sidaas darteed ayay Linda waxa ay bilowday in ay cadowtinimo aad u weyn u qaado Charles iyada oo markaasi bilowday sidii ay uga argudan lahayd. waxa ay u sheegtay in xaaladdu ay hadda caadi tahay iskana cafiyo gurigoodana ay dhaqdaan, laakiin arintan iyadu khiyaano kale ayay ka wadatay. waxa ay bilowday inay sun soo iibsato isla markaana habeen walba ay kiskis u siiso Charles si aan loo dareemin isla markaana jirkiisa ay tartiib ugu faafto. 3 bilood ayay suntaasi ku waday habeen walba. markii dambana Charles waxa uu gaaray ilaa heer uu dhulka soo dhaco, xaaladiisa caafimaadna ay ka sii darto, sariirtii xitaa uu ka soo kici waayay. Linda waxa ay iyaduna samaysay 5 caruur ahayd ee ay haysatay ayay ka waday halkii ay deganayeen ee Indiana ka tirsaneed, waxaana dib ugu celisay reerkoodii oo maalmo ay la soo joogtay. haddana habeenada ka mid ayaa la sheegay inay soo wadatay caruurteedii, waxaana ay timid hotel deegaanka u dhow halkaas oo ay degtay. markii ay caruurta hotelka keentay waxa la sheegay gabadhii yareed ee Charles kaliya ay soo qaadatay, ilmaheedii kalena ay u sheegtay inay sii joogaan inta ay ka soo laabanayso, cidnana aanay u sheegin in hooyadood ay hotelka ka baxday. gaarigeedii yara ayaa ku soo dhacday, waxaana ay timid goob petrol station ah ama shidaalka lagu iibiyo. 2 caagadood oo benziin ah ayay ka sii qaadatay, waxaana ay sii aaday gurigeedii oo Charles uu ku xanuunsan yahay. markii halkaasi ay tagtay waxa la sheegay sidoo kale inay sii qaadatay qori dhowr xabadood ku jirta. sariirtii uu Charles ku jiifay ayaa kor tagtay, dhowr xabad ayay ku dhufatay, kadibna waxa ay samaysay inta boorso ku riday weyn meedkiisii dab ayay qabatay, halkaasna isaga soo baxsatay. Alma kadib dambibaarayaasha oo xogta raadinaya dilkan iyo cidda ka dambeysay ayaa waxa ay xaqiiqsadeen in haweeneydii Linda ahayd ay ka dambeysay dilka saygeeda, waxaana ay u yimaadeen Linda iyada oo lagu soo ogay dacwad. Linda waxa ay sheegtay inay waxaas shaqo ku lahayn oo aanay ogeyn, laakiinse waxa ay ka tagtay cadeemo dhowr ah. meedka waxa jirkiisii laga helay markii la baaray kadib in sun la siinayay muddo dhowr bil ah. bilooyinkaasina waxa iska cad in Linda guriga ay joogtay. waxa hotelkii ay deganeed dhinaciisa laga helay qorigii ay wax ku dishay oo faraheeda ku yaalay. sidoo kalena kaalinta shidaalka ayaa xaqiijisay in haweeneydan ay ka soo qaaday ilaa iyo 2 caag oo benziin ah. sidaas ayaa lagu qabtay xabsi daayin ayaa lagu xukumay. Linda waa ay ka qoosatay caruurteedina meel la geeyay waa ay garan weysay, iyada oo xabsiga isaga jirta isla markaana ka qoosatay in mar kale dib loo soo daayo ayay Linda waxa ay fursad u heshay dayacnaan xabsiga ka muuqatay, halkaas oo inta ay soo booday darbigii kadibna banaanka timid iyadoo cararaysa dhiig badan oo ka qulqulaya ayaa haweeney aragtay. haweeneydii ayaa weydiisay waxa ku dhacay, waxaana ay u sheegtay in nin ay saaxiibo ahaayeen uu soo garaacay, sidaasna ay baxsad ku tahay. haweeneydan waxaa la joogay nasiib wanaag nin lagu magacaabo William oo isaguna tuulada Plaska ee Mareykanka safarka uga yimid haweeneydan si uu u soo booqdo. gabadhii ayaa meesha ku sheekaysteen, waxaana uu soo bandhigay in uu meeshan ka wado maadaama nafteeda ay halis ku jirto isla markaana tuuladaas uu geeyay. Linda wada kale uma furneen waxa ay aqbashay hadalkii William, waxaana ay durba ogolaatay in ay isaga raacdo. waxa ay muddo wada joogaan tuuladaasi, labadoodu waxa dhex maray jacayl kaas oo sababay ugu dambeyn inay isu gursadaan. Linda iyo William waxay isku dhaleen 2 caruur ah. gabadhan iyadu waxa ay markan bilowday in sidii hore si aad uga duwan ay qoyskan cusub ula dhaqanto. waxay maskaxdeeda ka saartay dhammaan caruurtii ay hore u soo dhashay iyo 2 ninba inay soo guursatay. waxa ay bilowday in habeen iyo maalin ay la shaqeyso ninkeeda si reerka loo dabaro. sanado badan ayay halkaasi ku sugnayd, caruurteedii ay meesha ku dhashayna caruur kale ayay dhaleen. hase ahaatee nasiib xumo, maalin maalmaha ka mid ah Linda oo ayeey ah ayaa guriga waxa u soo garaacay askari deegaanka ah kaas oo gacanta ku wado sawirkii yaraanteeda. markii loo keenana waxa uu weydiiyay askarigii, maama Linda sawirkan aqoon ma u leedahay? iyadoo aan iska waalin ayay durba ku jawaabtay haa oo waa aniga. askarigii aad ayuu ula yaabay, sababtoo ah Linda deegaanka caan ayay ka ahayd, loomana haysan inay tahay qof hore guur u soo maray ama wax soo dilay. sidoo kalena baxsada, sababtoo ah waxa ay baabiisay dhammaan macluumaadkii iyadu laga hayay. balse waxa la sheegay in ugu dambeyn Linda xabsiga loo taxabay iyada oo da ah.
suxufiyiintii ayaa u yimid si ay wax uga weydiiyaan. waxay u sheegtay inay sax tahay xabsi inay ka baxsatay, laakiin waxa ay meesha ka saartay in ninkeedii hore iyada ay dishay, iyada oo tilmaantay in dambigaasi si been abuur ah loogu soo oogay. markii la weydiiyey inay marka horeba inta aysan cararin oo intaasoo dhan aysan gabaad meelo kale ka dhigan ay u sheegto warbaahinta amaba xitaa hay'adaha cadaaladda, waxa ay tilmaantay in ay weysay cid dhag jalaq u siisa oo hadalkeeda meel ka soo qaada. ilaa hadda Linda waxaa la sheegayaa inay xabsiga ku jirto. daawade ma isleedahay haweenka aad ayay uga sir qaris badan yihiin ragga? aragtidaada qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb. mahadsanid.